وكم هالأمورة دليرة مسكحدي سوشي لي بدبعدين تديان كينا magacaygu waa Cabdi Caabu Ibraahim kana shaqeeya arrimaha waxbarashada deegaanka iyo ganacsiga tiknoolajiyada. injineer Cabdi Sataar waxa uu hormuud u yahay dhalinyaro ku baraarugtay badbaadinta iyo ilaalinta deegaankeena si gaar ah badda iyo noolaha ku nool taas oo ah mas'uuliyad oo kuwa badan oo naga mid aysan ku baraarugsaneen. Waxay nagu dhalatay markaan aragnay waxyaalada deegaankeena la soo gaarsiiyay dhirtii oo la jaraayo walxaha dhibaatada ku ee plastikada oo badii lagu shubayo taas ayaan go'aansanay meelaha ugu muhiimsan dalkeena ay ka mid yihiin badaha oo dhaqaalaheena iyo maxaa la lahaayay hantida ugu weyn haysan ay tahay laana insaanku wuxuu ku nool yahay barigeena uu ku nool yahay badana uu ku nool yahay dhaqaalihiisan labadooda ku tirsan tahay taas ayaa go'aansanay marka anaga inaan u qonno muuqaalka bulshadeen laga arkaayo xeebaha ka mid tahay in anaga nadaafadeeno kadib markaan arko walxaha ka samaysan plastikada oo dhibaato ku ah noolaha badda ku jira iyo caafimaadkeena iyo dhaqaalaheena intaba ayaa waxaan kaliya inaan sameeyno ma ahine oo la nadaafado waxaan ku dadaalnay inaan dadkana wacyi gelino shaqada aan qabanayna aan joogteeno marka waxyaabaha ugu dhaliyayna hore aan in badan u sheegnay deegaanka waxyeelada la gaarsiinayo marka aragnay waxaan u baahanahay deegaanka dhibaatada la gaarsiinayo in qatarta aad u yareeyno anaga ma dhaheeno qashinka magaaladan ku yaala ayaa dhameystiri karnaa laakiin waxaan isku dayaynaa shumac yar inaan halkaa u shidno oo wax uun ka bedelno hadda waxaa arkaysaa tallaabada yar aan qaadnay inta milyan oo qashin aan ka qaadnay xeebteena iyo noolaha badda ku jira badbaado weyn inaan maanta u sameeyno marka loo eego caadooyinka bulshadeena way fududahay in shay ama ficil la bilaabo laakiin way adag tahay joogteynta shaygaasi hawl walba in la bilaabo mararka qaarkood way fududahay laakiin in la joogteeyo ka adag marka 2 sano ka hor sida xeebta ahayd iyo maanta siday tahay dadka xeebta u dalxiis taga ayaa og injineer Cabdi Sataar iyo kooxdiisa waxay guulo badan ka gaareen caqabado badan oo haystay dadkeena sida fahansiinta dhanka deegaanka waxyaabaha ku guuleysan waxaan qow ka ah qashinkii badnaay oo waxyaabaha lagu shubi jiray maanta inaan ka joojino maalintii aan bilaabayn 2 sano ka hor safarkeena dadka dhan baday qashin ku shubaayeen laakiin maanta hadda dadka badda ku shubaayay in qashinka ay qaadaan laamiga geeyaan laga qaado waa wax weyn guulaha aan xisaabta ku farxi karnay kamid ah guusha labaad aan gaarno waxa kamid ah qashinada la duugi jiray maadaama xeebta ay jilcan tahay in oo qashinka xeebta lagu duugi jiray inaan ku guuleysano maxaa la inaan ka ilaalin goobaha hadda aan ka shaqeynayna ilaa wasaaradda deegaanka ay u aqoonsatay dadka ugu wanaagsan ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka aqoon aan isleenahay aan ku guuleysano maanta inay noo aqoonsato wasaaradda deegaanka dadka ugu waxqabadka fiican sanadkii hadda la soo dhaafo oo kale aan rajeynay laba abaalmarin oo waaweyn aan ka helnay aad u mahadcelinaa wasaaradda deegaanka dadaalada ay wadaan yani waxaan rajeynayaa inta ka badan waxaan ku guuleysanay inaan joogteeno la dareemaysaa 2 sano ka badan oo iska xaqofso oo joogteen ah oo anaga aan bixinin waqtigeena iyo xoogeena aan hal maalin aan baaqan muwaadin haddii qof naga mid ah sida injineer Cabdi Sataar waqtigiisa maalkiisa iyo maskaxdiisa ugu deeqay badbaadinta deegaankeena adigu waa maxay doorkaad ugu tala gashay inaad ka ciyaartid badbaadinta deegaankeena